وهذا كله فرماجة وإنكم مدارنا هو يدي بدكم مدارنا يصير يضافاتي إذا الشيء سنة محمد عبد الله فرماجة مايا odayaasha dilayow maanta waxaad ku doodeen farmaajo dambiilaa 700 qof falowga waxay iga ceshatay taageero aan taageeray farmaajo dartiis madaxweyne ku soo dhaw dalkaagii hooyo madaxweyne ku soo dhaw ummadaada Soomaaliyeed madaxweyne ku soo dhaw dadkaagii iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالك وحدير الجنة أدوك عفمات قبالتي نتا مقالك السنة أكو داود دونتان وغرين بأبريد كينا نرسو عشان تحت بقوله وكون سفر كنا نلقى سكرات سرسيو في المقال كان أقرأي فكر كاقنا كوماتيك واي هاي سيداد مقالك سركسواسي شلو عسو قد بيي مقال كفل عليسان إنك بدن لو بقوله وكوماتي أما كدبات كسو فالعلين داد مقال كاسي مادام او أها مقال كساب سفرماجو داد آد وسو رجيد أولها قوليسا مقشاو يرينا maanta waxaan noo wadaa dad u kacay oo difaacayo yaani aniga mar raadin shay ina wariye dhaxaad ahay shalay toomka soo gudbinay muuqaalkaas dad baa waxay u maleeyaan farmaajo nacbahay markaana waa markiisa dad waxa soo baxay tiro badan oo farmaajo difaacay kuwaas oo leh kuwii shalay lahaa farmaajo weerarayna waxay leeyihiin isku dayaan xataa in qoriga qaadanina farmaajo difaacina dadkaasi shalay soo gudbiyay muuqaalkooda shalay iyo dad baraha bulshada ay haystay hadda dad waxa soo baxay farmaajo difaacay marka waxa ugu horeysa hooyadan Soomaaliyeed oo leh farmaajo astaan qaran ayuu inoo yahay وهذا كله فرماجة وإنكم مدارنا هو يدي بدكم مدارنا يصير يضافاتي إذا الشيء ودن كرسان لقمة وذا تشوقي لقمة وذا لحانيو هذا فرماجة أنا وأستان تسقرن كنوية على كيعيد أنتو وقبتني إلى هين مرقاتيبك يا أدومدي سنة مرقاتيبكين فهد ياسين بدكم سستين ويلير أو أطلع كرتانو بقول قر أطلع كرتان بكل ذيك وذا قرقتين هو يدي يضافاتي إذا الشيء بس أراجع النصان نصر كعد كل هاي ويلاش وريا فهد ياسين يا عبد الرحمن داريين صد من هويا معهم ما الولب ما حد حنيا قلت كنتي ويل يرو عطلي كتان مع ايدي جاي مع الولب ورميت كاد عاو اطفر بحصري سوا هبنكي فايرسك عاو هبنكي فايرسك ما حاجه قال وريا هذا مت كاد عاو ادليدي المدارات بان كنت غينا غريغي سان كتورينا الميس سو ابتيال امتين حدد ما تقانان او خيغاله ما تقانان او ددنimo ما تقانان او اهلنimo ما تقانان او Soomaalinimo ما تقانان odaga filla ku kaadi fadhiyo iyo odaga budka la roorayaba ay dhalay baad wadatiin xaaraayay xaaraantu dhasho aan is wada qabanin warba maxay waxaan uraagadu dhason nasabnimada waxad aan kulayn kaliya hooyadan Soomaaliyeed ma aha sidoo kale shacabka Muqdisho ayaa la wareystay oo mikrofoonka la dhax qaaday ayagoo laga wareystay farmaajo sidoo arkaan muuqaalka dib marsanayna xaaladii ugu dambeysay marka dadka farmaajo u hanjab xagee maraysa xaaladda maadaama ay dhigeen gurigiisa ayaa weer culus ku qaadayna shalay soo gudbiyo qofka daawan jananka iyo waxyaalo sidoo kale wiilkan Soomaaliyeed waxa uu leeyahay 700 oo dad ah oo farmaajo nacib ayaa falowgii TikTok-ga igla laabtay bayla daawada 700 qof falowga waxay iga ceshatay taageero aan taageeray farmaajo dartiis waan yaabay wiliga dambana hay soo falow gareen warkayga soo macda wiliga dambe hatta hay soo falow gareen shalan ani kuma qasbin qori kuguma haynin xoog igu soo falow garey kuma dheen isfahan iyo waxaan ka hadlay ama waxaan tubinay ka helitaan ka heshay darteeda ayay ahayd waxa ii soo falow gareysay hadda farmaajan taageersanahay maxaa iga yeersiyay 700 qof baa falow igala noqotay wiligiin dambana hay soo falow gareenina waa hadda wiligiina أنا وحكوا بلنقادا هذا بلوك إسارين إن كوكو خصبه فيديو جيجي أديك إنه كسو جار معلم والبه هذا كوكو خصبي وكبت صار إسار بلنا كوكو قاعد إن كوكو خصبه فيديو جيجي كسو جار واحد كلي أو كل بتبادي أنا أني أديك وهنا بلوك إسار تا بس سوفلو ما أدني 20 بلوك إسار سكلة ما كل بتبادي أني أديك معلم والبه بلنا كودا إن أي أركتت وبلن إن أي أركتت معلم والبه هذا بلوك إسارين واحد كلي أو كل بتبادين وبلوكاس بلوك إسار ساسا كل بتبادين حل كلام مجرو بسم الله الرحمن الرحيم سيدي وتاجيري كرتا فرماجو وحاس وايد بدره وتاجيرا شكته حد بابا وحمر انا سو سميستو مكو درا مسواس كدافا بسم الله الرحمن الرحيم حيتا لكسان عند أذاك بإذن كادمي حوق مياه يعني وحا ربطان أنا تاجر حوق مياه ولقيت ما دعوي ساعتها ولقيت هذا فلو وحوين أو أركتاي عوان كاتا أنا أجي حر تسكدي أجي حر بالكن أرجي سايد بويه بسم الله الرحمن الرحيم أو خوف كارت ما تاجر كرتدبا ديب دمبا يسوى فلو قرين وأنا كده يأمن إذا بدرنا واحد
xurnimo dhan ma jirto waxa rabaa taageera maahan farmaajo inta ku soo dhajisanaa wada xaalad halkaas ay maraysaa yani caalamku ayaga isku mashquulsan yihiin oo cadowgooda ku mashquulsan yihiin aniga Soomaaliya hadaan ahna aniga isku mashquulsan dhinac waxaa nooga furan gabar la gubay dhinac waxaa nooga furan farmaajo nacayb iyo farmaajo jacayl labada dhinac iswataan farmaajo la isku haysto 120 waxyaabo kala duwan uga furan hadda mid aan sheegaya markii siyaasi horto معارض مواعيد تصالي حد بحاجة مدعينا الصومالي حشق محمد سامع وحصل بحين كوفي وذا وطو قميص وطو أوله وحانها يا كنيسة دي أو حشق صباح سبحان الله يعني هذا تصيا سياسيين تان إن النعبية تذكر إن نعبيين قف كستا معارض لفرماجة ما بل نكا وين وحكوا هذا يلفيري كنيسة دا حسن لغو صوت وبري أيامان تكهد لنا إن شاء الله سوي كان أركتان وحسن يا سنة كان 2001 كي مركا ميشان ونين كان جوجو 2001 كا إلا 2001 كا EMU لدهو وامحي EMU محلقة ودا Eastern Mennonite University مقع مهم كا الربعين حسوستان ومنونايت اوكي Mennonite محل لها داد او كمد كريستانكا ولي كسي مد بروتستانتكا waxaan oo dhan waa muhiim xasuusta okay marka meeshan kaniisadan oo dadka lagu tababaro ayaan ka hadlaynaa astaantooda iyo sawirkooda waa tan wayaan Holy Bible is the truth okay page-kooda ugu horeeyana markaad tagtid maxaa ku qoran We lead lives following Jesus, model of faith in action. Yeah, tilawat qaad oo ku xiran anaka oo Jesus raacano. Crossing divides, seeking peace and justice. Maxaa rabaa inaa xasuusataan xarifkaas peace. Waa xarifkay ku soo gambadaan in badan dadka. Marka si fiican u xasuusta. And shaping communities and a world. Okay? World na xasuusta because waxaan waa wax caalami ah. calaamadooda oo kristaanka tan waatana laakiin maxaa ku wareegsan adduunka oo dhan marka dadkan maxaa dhahaa evangelical Christians ah waa dadka diinta kristaanka adduunka dhan inay kristaan ka dhigaan rabaan okay Protestant wayan marka dadka maxaa la dhahaa Mennonites taariikh dheer oo ilaa 100 sano ka badan oo isku xirxiran oo ilaa maanta socoto aan ka hadlaynaa ilaa maanta dadka Soomaalida in badan ee madaxweyne iyo dawlad iyo waxay ugu wacaan dadka sameeyay dadka maamulo okay aan ka hadlaynaa insha Allah waa story dheer oo 50 video aan ka sameyn karo marka ila socda dadkan meesha ugu badan yihiin population kooda kuwa la dhaho Mennonite ka waaya meesha ugu badan yihiin kow waa Mareykanka labo waa Ethiopia population kooda okay arintaas waa inaa xasuusataan waa nin weyn wadaad baa u malaynaysa marka kor ka aragtid qof islaam oo gaal ku tilmaamaya marka waliga siyaasi isku murjin difaaciis siyaasi ma difaaci kartid oo hadaa mar siyaasad Soomaaliya soo gashay ay ayaa saaxiib la noqonaysa waa lagu caynaya waa lagu jafaya wax baa laga sheegaya wax lagu reebanayo haweenatiin barax sidoo kale gabadhan oo gabar tiktokerada oo difaaca farmaajo meel culus ka gaartay ayaa waxay leedahay sidatan odayaasha didayow maanta waxaad ku doodeen farmaajo dambiila dumar iyo caruur iyo haween duugan buu dilay dibdhac buuna nugu riday ee waa inaan la dirirnaa oo dalka aan ka saarnaa oo dadku badiba soo baxo waa su'aal daaweyno marna daynba maaye haddii uu diwaan jiro dadka kala xukumi kara daalimiinta qaban kara dambiilahana heli kara maxaa la isku dilayaa kuwa taagta daran iyo dayartuna u boyda nin walbo dan gaar leh horta muxuu la doodaa doorkiis markay tahay ee daarta uu taga dadka muxuu laaya daayartiya dhaliintow qabiil waan ka daalay yaan la isku keendirin nin walbo dan taagaro kuwa duubka xiran iyo dollar cunayaashow isdagaala idilkiin dalka iibsigiisiyo dakadaha ku lowlama danu nama dhextaale waa fiiri doonaa insha Allah wararkii u dambeeyay farmaajo imika waa baad qaba dad ba isku dayna weeraraan oo mataqaan gurigiisa u dhacaan ayagoo leh waxa ku heesanaa kiisas culus waa fiiri doonaa insha Allah waxa ku soo kordho
wax walba update waxay la daawatay markaan shacabkii muqdisho oo mikrofoonka la qaad ayagoo laga wareysanayo farmaajo iyo sida uu arkaan ayagoo aad u taageersan oo leh farmaajo waa taageersan maadaama muuqaalka shalay uu ahaa dad ka soo horjeeda markaan waa dad farmaajo taageersan YouTube camera oo dhexaad ayaa u imaanaysa idne kuma foorare adiga fartaas ku fiiqay ila daawada idinkana bal daawada ra'yigaaga farmaajo agtaada muxuu ka yahay waxa uu ka yahay farmaajo agtaada commentin la wadaag waxaan hawada u soo marinayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane farmaajo oo maanta wadanka yimid mudane soo dhawow gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa wadankaagi aad ku dhalatay aad ku barbaartay aad wax ku baratay oo maalmahan dibadaha ka aaday insha Allah waa geedaha ku sugay dadka iska dhaafay geedaha ayaa ku soo dhaweynaya madaxweyne xasan sheekh asigana waa salaamaha teeda kale madaxweyne waxaan waa dimuqraadi federaal way haddana haddii doorasho ay timaado oo qof iyo cod ay timaado oo laga guul helan hadda waa iska dhiibay haddii aad ku soo noqsateen alxamdulillaah rabbil caalamiin annaga mudane farmaajo waxa ku soo aaday wadanka dhibaatada jirtay duruufta jirtay ayaa timid marka maamulkii iyo hadda haayay iyo kuwii hore oo howlgabka ahaayba inta in loo kulmo oo wixii wanaagsan uu sheego ayaa ku soo aadisay maahan duruufo kale ku soo aadin karta ma jirtaan islee wax qabadkiisi kulay maalmihii doorashada nin walba indhiisa u macalin maalmihii doorashada la soo galayay nin walba jirkiisa hataa intuu dilaaciyo wuxuu ku waray mudane farmaajo weliba waxaa markhaati ugu ahay gabar oo jigjiga joogto oo magaceedu ku soo qortay magaca fulaaye farmaajo ay ku soo qortay aabaheedana maaha abtigeedana maaha aqoon uma laha saas ay tahayna wax qabadkiisa iyo dadaalkiisa ayay u yeeshay marka ayadana waa ku mahadsan tahay asigana in mar uu soo nasto oo dibadaha iska aado soo nasto mar labaad soo noqdana waa soo dhaweynaynaa gacmo furan والله أعرف عن وسود وين مدحويني ورد لك سوماليا محمد الله فرماجو متقانا وأب الصوماليين وودنك واحد بدن وقبت هذا وسود ويننا والله وأقول وين متقانا محمد الله فرماجو متقانا شعبك قلبيده وكسبدي فهمت قفل بو صوماليين متقانا وحو متقانا وقتها وحو متقانا إيشك محمد الله فرماجو وحو قفل بو أوجي فهمنو مرك هذا والله هبينك دورشيديس عصوستا عافدي لا مدحتويدا orday infaanteed marka maxaa la farmaajo aad u maasiin waa soo dhaweynaa walaal waa maalin jimca waa maalin khayr qabta waa maalin ummadda Soomaaliyeed oo dhan farxad aad u weyn waxaan aaminsanahay maxaynu soo noqdo dalka ku soo noqdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow madaxweyne ku soo dhawow dalkaagii hooyo madaxweyne ku soo dhawow ummadaada Soomaaliyeed madaxweyne ku soo dhawow dadkaagii iyo ku soo dhawow madaxweyne dalkan iyo dadkan wuxuu u baahan muwaadiniin adoo kala daacad ah madaxweyne wuxuu dalkan u baahan muwaadiniin adoo kala naftooda iyo dhiigooga hora madaxweyne waxaan leeyahay shacbiga ummadda Soomaaliyeed waxay habeen iyo maalinba u taagan yihiin inay helaan cadaalad inay helaan horumar inay dimuqraadiyad helaan inay midnimo helaan inay wanaag helaan inay wadajir helaan sidaa daraaddeed madaxweyne ku soo dhawow baa ku leeyahay waxa kula kulmi doona insha Allah taala salaadiinta bahda dhaqanka siyaasiyiinta xildhibaanada laba gole taliyayaasha ciidamada aqoonyahanka waxa kale kula kulmi doona siyaasiyiinta daadayar haweenka dhalinyarada marka madaxweyne kulamadaadu aad bay u badnaan doonaan insha Allah taala waxaan la rajaynayaa kulamada ay kula yeeshaan xildhibaanada labada aqal gaargaara iyo taliyayaasha ciidamada wixii ka soo baxa shacbigu waa ku farxi doona shaawana maasantiin waxa ku soo beegay dalkan iyo dadkan wuxuu baahay isbedel horumar buu baahayay midnimo buu baahayay wadajir buu baahayay hufnaan buu baahayay wuxuu u baahay talada la qaybsado tala wadaag la yeesho sidaa daraaddeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa leeyahay madaxweyne ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu soo laabto horta oo dalku soo laabto waa soo dhaweynaa sababtoo ah madaxweyne hore waaye dalkan muddo 5 sano xukumayay ra'iisul wasaare soo noqday magaalada uu ku dhasho waaye inuu soo laabto oo arrimaha dastuurkaana siinkiisa wuxuu ka qabo oo sheego waa arrin dawlad dhiska Soomaaliya iyo hufnaanta qayb ka qaadanaysa sababtoo ah waxa waaye wuxuu ku jira dadka stakeholderka oo ku jira dastuurka marka laga hadlayo dastuurku waxa waaye waa heshiis bulsho waaye waana wax dadka mustaqbalka jirka dambe qoseey waaye saa darteed marka in si hufan looga doodo oo laga mataqaana wax la yiraahdo wadar ogal wax la yiraahdo looga heshiiyo way fiican tahay
dabcan konseen uu ka qabay isaga madaxweyne sheekh shariif waa ay sheegeen konseen ka qabina way sheegeen dabcan laakiin waxa xoogaa muuqatay in la joojino shaqada oo la sii waday marka inuu hadda yimaado oo weji ka weji ay soo arkaan isaga madaxweynaha ayaan rajaynaynaa laga doodo laga munaashaqado go'aankiisa iyo aragtiisa wixii uu ka qaban oo ku darsado macnaha madaxweyne farmaajo madaxweynayaasha soo maray waddanka waxaan u arkaa aniga inuu yahay aragtida madaxweynayaasha ugu mudan inuu ku jiraan u arkaa macnaha madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliya ku soo laabashadiisa dalka Soomaaliya aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu imaado magaalada Muqdisho mudane madaxweyne waxa leeyahay dalkaaga ayaa imaatay dadkaaga ayaa umaaday dadku jecel ayaa umaatay ee ku soo dhawaad magaalada Muqdisho aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu madaxweynihii hore dalka ee dib u soo laabto muddo 12 bilood oo maqnaa kadib dib ugu soo laabto magaaladiisa Muqdisho madaxweynaha waxa leeyahay shacab haysta dad haysta dalkaaga umaatay martin kama tihid waxa meelaha ka qaylinayaan waxa leeyahay madaxweyne waxba u arkin shacabkaaga ku jecel dalkaaga imaaday dalkaaga hooyaa imaatay waxa leeyahay ku soo dhawaad mudane madaxweyne farmaajo dadka daljisan idab daray la daljisan yihiin farmaajo waa madaxweynihii dalkan soo maray oo madaxweynaha hadda jooga looga horeeyay sharaf buu dadka Soomaaliyeed ku leeyahay sumcad buu ku leeyahay karaamad buu ku leeyahay waa madaxweynaha iyagii madaxweynahan hadda jooga bedelay birina waa dalkiisa oo ay soo sharxi karaan waa iman karaya anu farmaajo cid u dhalisan oo uu deen ka qaba garan maayo nin kasta oo madaxweyne soo marana asagoo la dhaliilayo buu tagaa waa Soomaalida caadadeeda marka waxaan leenahay dhamaanteen iscafina afallahu amma salaf wixii la soo gudbay wax hadda jooga aan ka tashanaan hore u soconaan oran lahaa Soomaalida imaashaha farmaajo waxaan dhihi lahaa aad baan u soo dhaweynaynaa maadaama qabiyo qoraalka Soomaaliya la dhameystirayo dastuurkii aad bay u wanaagsan tahay in lagu wada shuureeyo oo Soomaalida intii leadership ahayd isku timaado oo wax isla meel dhigaan oo ay ka dhigaan dastuurka kutubka Quraanka inay nooga dhigaan dastuur kale aysan jirin